Assalaamu calaykum asxaabta kusoo dhawaada. Maanta waxaan idin hayaa wareysi la yaab leh oo asxaabtiisa maanta aan ku wareysanay. Barnaamijkani maanta waxaan uga hadli doonaa ama isku weydiin doonaa maxaa kula yaab badnaa inta uu socday COVID-19 ama coronavirus. intaas ay rabnaa maanta inaan kula fokurno halkan. waxaana barnaamijkan ila qayb qaadan doono asxaabtayda oo halkan aan loo soo koobi karin. marka barnaamijkani waxaan jeclahay inuu noqdo continue ama inuu sii socdo qayb koowaad iyo qayb labaad intaba inuu yeesho hadduu la yiraahdo. laakiin maanta waxay la qayb qaadan doono asxaab ayaa halkan igu marti ah oon rabaa maanta inaan barnaamijkani weydiiyo siday u arkaan iyo waxyaabihii ugu la yaabka badnaa ee maxaa ahaydey intuu socday coronavirus ama COVID-19. marka haddana kusoo dhawaada barnaamijkii oo aynu guda galno wixii aan idin ballan qaaday iyo barnaamijka iyo waxaan idin hayo iyo waxaan idin soo diyaariyey. waan idin jeclahay mar waliba asxaabta ugu xiran page-kan. aad baan idin salaamayaa, si kale laaba idin salaamayaa sida wanaagsan ee aad mar waliba aad igu dhiirigelisaan ama aad i taageertaan. anigu idinka ayaan wax idinku ahay, la-aantiina ma shaqan karo ama horumar ma gaari karo. waana mahadsantiin asxaabta. bismillaah. haddii aan ka hadlo asxaabta cudurka loo yaqaano COVID-19 maxaa su-aal waxaa lasoo weydiiyey maxaa kula yaab badnaa. no waxaa igula yaab badnaay in cudurka coronavirus uu qabsado dunida dacaladeeda oo dhan, meel walbo ay joogaan ibni aadam oo dhan. cudurka coronavirus waa caabuq sababay kala xirnaansho, kala goosnaansho ku saabsan bini aadamka oo dhan inaysan issalaamin. haddana wuxuu bilaabayba in aad iyo aad loogu baqo bini aadamka kale adiga aad ka baqdid. cudurkan waa cudur halis ahay, bini aadamka dhan halis ku ahay. waxaan leenahay allaha naga qabto COVID-19. marka waxaan leenahay allaha dunida ka saar COVID-19. marka asxaabta aad iyo aad idin salaama, waa ku mahadsantiin. waxyaabihii ugu yaabka badnaa oo intuu corona socday waxyaabihii ugu yaabka badnaa ama waxyaabihii aan arkay waxaa ka mid ah gabar ayaa isbitaalka ka shaqeynaysay. isbitaalka ayay tagtay, cudurkii kasoo qaaday, kadib xaafadii keentay. hooyada oo ku dhacay oo u dhimatay, sidoo kale walaalkeed iyo isagana sidoo kale isbitaal la siixiyey iyadana sidoo kale. waxyaabihii igu yaabka badnaa intii lagu guda jiray COVID-19 oo lockdownka aan ku jirno way badnaayeen. laakiin waxaa ka mid ah maalmaha ka mid ah horta maalmihii hore o dhan shuruucda waxaan waafaqayay si boqolkiiba boqol ah. markaan rabo inaan meel aado waxaan ku dadaali jiray inaan bajaaj qaato, gaariga dadweynaha raacin, warxalka iyo social distancing iyo waxaasoo dhan ku dadaalo. marka mar walba waan baxa, laakiin dadka waxaan kala kulmay runtii aan arkay bulshada aan dhex maray ka duwaneed. kawaarisdooda socdaan, dadku sidii macnaha isu raacaya, qaybiha la fadhiya, wax walbo dhan waxaa waaye waa sidooda. marka hadda kiisaska yaraadeen baa maalin geesnimada iska raadiya. waxay is dhabalay maanta bal dadkan waa dadkaagii isku deegaana tihiin, intaasoo bilood ka dhex maqneed maanta baska la raaco oo joogiisu u yahay waxaa dareeta fiiri. anuu runtii riskigaas u bareeray waa raacay maalintaas. markii aan gaariga koray yaa waxaan galay mood iyo xaalad kale oo tii hore ka duwan. waxaan bal ka fikiraayo maadaama dee aan 2 bil iyo xoogaa aan gaari dadweyne raacay, qof hadduu ku faco waxaan wax isleynay waxaa kusoo raacay. mar walba macnaha dabciga moogta biniaadamka hooyada ku bartaa. marka kula marka showta weheeda waxay arkeen inaan moodkaas ku jiro, taleefonkana jeebka ku jiray. waxaa aaminsanaada in taleefonka uu gacanta saddexaad yahay. iska hay jeebka iska gashay intaan meel gacmaha ku dhaqataa helaysa aan tataaban. sidaasay marka iga jeebsiiyeen taleefonkayga.
arkay mana dareemin markaa meel kale oon gacmaha iska nadiifin oo siday walin taleefonkaaga bala soo baxa aan ka war helay macalin taleefonka laga jabsan marka qisooyinkii aan kala kulmay kamid covid-19 ka timi jiray marka ilaahay nagayasa aan dhablay laakiin deegaankii muqdisho soomaaliya ka ahaan dadku wacyigelintii sida loogu talagalay qaadan waxaana keenaya dee sida loo wacyigeliyey oo marar badan waafaqsanin standardska caalamka. runtii waxaa la isoo weydiiyey horta su-aal ah maxaa kugu yaabka badnaa coronavirus. runtii waxaa waaye horta coronavirus waa la bartay horta waxaa waaye inta badan, laakiin dadkan Soomaaliyeed iyo wadamada Afrika ma laga yaqaanaba. marka anigu waxa ugu yaabka badnaa waxaa waaye inta badan markii aan arkay gabar Soomaaliyeed iyo wiil Soomaaliyeed oo in muddo ay shaqaanay oo 4 sano jaamacad soo dhiganay oo maanta salaamka u istad gabadhii ku adkeeyay markaas gabadhii waxay istireen marka maxaa ay salaami lahayd markaas uu shaki baa jiro. marka haddii maanta salaam waayo birri marka maxaa noqon kara marka la yaabkaas salaantii waxay noqotay in la isku adkeeyo marka waxyaabaha kale maxaa malan marka. bismillaah saaxiibada wax kaaga sheegay muqdisho iyo coronavirus. muqdisho hadday joogto gloves ma xiran kartid maxaa lahaay face mask haddii ay xirato corona qabtaa. that's all. haddii ay xirato gloves iyo face mask corona qabtaa ama magacaada corona la dhahaa. haddii aad micnaha xirato ood ku baxdo qofkii ka hor imaado ama qofkii kula hadlayaba kuuma wacay magacaadii oo ahay ama cabsan kuuma wacay ama cabdiraxmaan ama magac kale kuuma wacay just wuxuu kugu wacaa coronavirus. maalmaha ka mid ah waqti lagu gudi jiray coronavirus iyo muqdisho waxaan u baahday inaan aado bakaaro oo waqtigii ciid soo dhaweyd. marka haddii aan bakaaran jaamacada waxaa isdhahay waxaa xirtaa gloves iyo face mask. waxaa xirtaa adiga alxasil gloves iyo face mask xirtay qofka kugu horeeya ka hor imaado wax kale kuma wacayo. haddii ku yaqaan xataa waa kugu wacaa coronavirus. bajaajlayaashii aan damacayna raaca wax kale uma wacayn waxay ugu wacaan coronavirus. marka adiga waa baxay bajaajlayaha damacayna raaca ay uma wacayn wax kale ama waxyaabihii sida normalka isugu wici jiray intee rabtaa haas camal wuxuu ka bilaabay coronavirus xaggee ku geeya coronavirus xaggee rabtaa haas camal. marka adiga waan soo kalba ku qoslay waa wax la iska yaqaano muqdisho dhexirta baalkii wax lagu maca coronavirus lagu waca. marka ad waa raacay bakaara tagay bakaarna jaamwa boqolka qof aragto waxaa qabo 2 qof bis qabto waxyaabaha loogu talagalay ay noo sheegeen WHO iyo hay'adaha caafimaadka 2 qof bis qabto waxyaabaha loogu talagalay COVID-19 in laga xirto. marka qofkii qabo muqdisho qofkii qabo macnaha waa qof dadka takooran qofkii face mask iyo gloves qabto dadka takooran macnaha dadka laga yaqaana. marka adiga waan baxay bakaarana dhex socdo wadooyinka waxaa arkay carruurta yar xataa in lagu macnaha lagu programme qofkii qabo dadka waaweyn muddo waa wax fahmi karo laakiin carruurta 8 jir 9 jir wax loo sheego bay qaadanaya waxaa fahmi marka ayaka yariska in lagu programme wadooyinka bakaarana dhex maraayo cunug waxaa iga hormaaday 10 sano jir ama 9 sano meelahaas ku qiyaas cunug yar. marka inuusan arkaynin inaan gloves iyo waxaas wato markii uu ila sameyn yahay ayuu arkay inaan macnaha gloves wato cunugii hal mar uu booday in la dhahay macnaha bahala agtaada maraayo camal. waxaa arkay xataa ciyaalkii yarke dadka wax gadanaysa wax kale kuuma wacayaan coronavirus kuuma wacayaan coronavirus kaada wax iigado. dadka qaar waxay ku weydiinayaan inay inta ka imaatay Soomaaliya ma joogi jirin miyaa waa dadka ugu fiican macnaha Soomaaliya ma joogi jirin miyaa waxaas ku weydiinaa. kuwa qaar waxay dhahaan niyo kaalin in lagu taabto ma gashay macnaha gacantii waxyaabaa sina kaa taabto isku dayaan. marka waxaan dhihi karnaa qofka muqdisho jooga xirta gloves waa tuka cambaar leh tuka wada madow yahay tuka cambaar la dhihi karnaa. marka السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta taariikhda waa June 10keeda 2 bilood ku dhawaad hadda guriga ku jirnay cudurkiina kor oo sii socdaa guryahana hadda loo xareysan yahay waxa ku yaabnaa maxaa anigu wuxuu yaabka badnaa wuxuu ahaa
horta guriga lagu jiro cabaar mal bixin baraha ma loo bixin nuucu yaabka badnaa wuxuu ahaa isbuuc hore mise loo isbuuc kahor baroni bilaw galabtina anoo garoonka iska dhex jirno dadka meesha ba cantufta ku margada amaleha kala bar way jabsatay oo ku faxabeya oo ku sax cantufta lagu sax bas kala bar dhan waa carartay janiisa dhinaca dambe ku dheelaysay darbiye ka babooday meeshan garoonka qof ku soo armay cudurku dila cudurku waa lagu dhimanaa sax waay ana waxay u yaab badnaa aan waxaa waay cudurkan kor oo sii socdaa haddan dadka cabsida ay ka baxda awal qofkii aragtid oo meel ka soo socda cuduraa jiro waa iska kala carari jira hadda waxay u yaab badnaa xawaas boqolkuna ku dhow yahay dadkina u istaataabanoo jidka ma kaa socotid ma aragtay dadka waxay kaa sikanaan 6 feet oo laamiga iska dhex soconaa 6 feet laakiin markaa garoonka tagtid waxaa isdhahay dadka aan walaalamiya si isku dhex arkaan dadka cabsida waa ka baxna bismillaah horta aada umahadsantahay su-aasha isu weydiisay maxaa kuula yaab badnaa macnaa intuu coronavirus jiray marka wallaahi waxyaabo badan macnaha oo coronavirus ku saabsan macnaha waan soo kulannay soomaalidan waa ogtahay macnaha waa dad dhib badan oo macnaha guriga joogayeen oo macnaha adduunka camal maahan adduunka macnaha guriga joogayeen oo dadka sharciga qabanayo guriga joogayeen marka waxyaabo badanaa jireen oo yaab badan horta waxyaabihii ugu yaab badnaa waxaa ka mid ah horta midkoo baalbiyeeri ah horta muxuu sameeyey macnaha geedii macnaha maaska oo xiray oo xirtay laakiinse macnaha geedii oo macnaha gacmaha oo la gashanaya ma xirno marka waxay noqonaya macnaha horta kow marka geedka cudurka markaa corona soo qaadaysa horta macnaha kow waxaa kasoo qaadaysa gacanta oo macnaha tan kale coronavirus macnaha waxyaabihii kale ugu yaab badnaa video waxaa ka mid ah video barankiga oo ahaay lagu sameeyey macnaha oo dadka wacyigelinay oo dadka badan soomaalida fiirsadeen videogaas macnaha marka waxyaabahaas ay ugu yaabka badnaa marka maxsaned raxmaan waan dhawahay su-aasha haddaan ka jawaabo niyo horta intuu korona jiray waxa ugu yaabka badnaa waxay ahayd nin baa laga wacyigelinayay sidii korona uu iskaga difaaci lahaa xiliyadu banaanku buuxo siduu dadka iskaga ilaalin lahaa marka wacyigelinta u socotay waa loo yeeray markuu soo fiirisaa la yiri niyahow cudurkan corona la dhahaa hadda anaga markaan macag fadhiso 1 mitir noo jirtaa waad ujeedaa qof markaad la kulanto ama qof aad istaqaanin aad aragto oo wadada kaaga hor imaado afka assalaamu calaykum ka dheh gacan hadduu kuu soo taago ha ka qaadin xusuusubood muxuu weydiiyaa qof dhan oo gacan ii soo taagay baan aan gacantiisa aan dhihiya walaale kama qaadayo sidaan dhahay ahaa taa wuxuu yiri waa baashi weeye waxaa weeye raxim goys baa anaa raxim goys ma yiri bas dee waa la iswada fiirfiiriyo waxaa la yiri ninkani baashi kama dhaadhicaysa looga dhaadhiciyo adiga waxaa loo sheegay waxaa la yiri hebel oo saaxiibka ah mataqaana niyahow hebel oo saaxiibka ah waxaa dhacday intuu banaanka u baxay buu qof saaxiibkiisa arkeen uu salaantii ka qaaday gacanta u taagay social distancing loo sheegay muu qadarinin adigu al-ultum uu soo qaaday xaafadu leeyimi wadaad joogta xaafada ayadii ku daartay caruurtii ku daartay hadda hoostaal lagu wada jiraan asagii waa xanuunsan yahay ka dahada fiirtiyo masalanta salaanta markaan ka qaado qofka gacanta ku salaamo gacanta xagee ugu gudbinaysa haay xiriir gacanta haysan ka taaban karta afka ku taaban karta jirkaaga meel kamid ah ka taaban karta waxaan ku arkaa ka waran haddaan taan salaamo lan qof islaamka gacana isu tahay ximcishanayee taan salaamo haddaan xaafadda markaa tago aan gacmaha sidaa kor kasal gacmahaadee kasii socota isku taaban maanan is og yahayn gacantii waan kontroolayaa intaan maanan kontrooli karin intaan sii socdo aan solirulah ku sheegnaa taama fiicnay tii kale ugula yaabka badnayd waxay ahayd muqdisho social distance baa la sameeyey suuqa bakaaraha saan filayo qofkii meel baa loo xariiqay qudaarta dadka gadanaya welibana iyo maamooyinka qudaarta gadib bas qudaarta markay maamada gado meel baa loo xariiqay meeshaasay soo istaagaysay ayadoo fadhiso qofka meesha istaagan xariiqinta 1 mitir u jirtaa qiyaas ahaan saas ugu dhiibisay maalintii ciiddaa kuu soo hartay markii soo dhaweyto soonka laga yara baxay
waxaad dhehaysaa corona fasax ba inuu fasax loo waxaa u malaynaysaa in corona la fasaxay maalintaas waayo dadka si ahaayeen haddaad arki lahayd waad yaabaysaa fiili hore maalintii hore waata oo social distancing la sameeyay sawirkaasaad ka aragtiin maalintii dambena waa tanaayo oo ciidda soo dhaweyd soo ujeedin marka wallaahi mid baa soo booday wuxuu yidhi niyow waxaan ka yaabayaa muqdisho inuu corona shahaadanaya ka baxo corona shahaadanaya marka wallaahi la yaabku iska badan yahay hadda corona ma bixin Cabdiraxmaanow corona wuu joogay allahu waxaan rajaynaynaa inuu sida ugu fiican ugu degdega badan ay dadka Soomaalida ay recovery ku soo sameeyaan dadka xanuunsan inta xanuunsan Allah caafiyo inta kalena ma garanaysaa caafimaadkooda Allah u wado ilaa haddana social distancing la ilaaliyo baalka ma bixinay. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.